meesha dagaal baa ka dhacay dagaalka waxa qaaday maamulka SLM ee gobolka Somaliland iyagoo ku duulan madaxweynaha maamulka madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo ujeedkeedu uu yahay wuxuu agagaarkan u yimi ayay halka duulimaad ka qaadeen dagaal qalaad baa halka ka dhacay mashadiisa iyo dhaawiciisana ilaa iyo haddeerto weli xogtooda rismiga ma hayno sidoo idinka soo sheegi doonaa haddii ilaahay ka dhigo meesha waa la isku horfadhiyaa dagaalkaasuna waa ka dhacay muddo saacadaad uu soconayay khasaarihiisana weli xogta rismiga ma hayno waa idin soo sheegi doonaa dhinaca Cabdullaah baa hadda gurmad badan ka soo baxay oo ay ka socdaan ciidankaasu aad buu u badan yahay ciidankan Somaliland saaka meesha ku duulay ilaa 70 gaari uu watay marka saddex madax uu ka tahay meesha oo si fiican bay isaga difaacday marka hadda xadadu waa istaagtay laakiin haddeerto ciidan aad u xoogan baa xagga dawladda ka soo baxay marka waxaa la filayaa ilaa galabta in dagaal halkaa uu ka dhaco ayaa la filayaa haddii ay soo noqon nimankaas maxaa iiga sheegi kartaa in Puntland ciidankeedii tuqarraq joogay in la dilay qaarna la dhaawacay baabuur iyo heesana la furtay arrintaas way la soo gaaraysaa laakiin xogta rismiga khasaaraha inta uu leeyahay warka rismiga ma hayno meel dagaal ka dhacay waad garanaysaa khasaarihiisa iyo sida loo kala guuleystay ilaa gelka dambe uu xogteeda rismiga helina waya ugu dambeyn marka laga reeb abaabulka iyo xiisada taagan ma jirta uqaal iyo dhinacyo waxgarad oo ku baxay dagaalkaas oo in la joojiyo ah walaal wuxuu deesaakay dhaceen waxaana oo jirayna ma jiro marka weli abaabul nabadeed oo meesha ka jira ma jiro mana joogi karaan nimankaas Somaliland ma joogi karaan meeshaas galabta haddii ilaahay ka dhigo لا فرصة قربنا ورثني أيه لكيل دونا. سواء حاجة وحتى هو أكتر هو أكترنا يدبوا صون أخوان بقشوا بويه.